ولذلك النبي وحو الصحابة كويري ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة وردد وميدين شيغا صونك هي الصلاة هي الصدقة وحكا فضل بدن ولما بدن وحيد هذا نوافش على شيغا عند المسلمين صدح دان شيء دوار كانوا الإسلام كي ووينا وحي كجري أما وحي أركان الإسلام كان لقو كبيي صلاة وعبادة قالي يضدك المسلمين تا مسكحدو دا يقانين هيركي حقا لك جوكت لما رقعدود السنة وصلاة الصبح كهرية ليلي خير من الدنيا وما فيها خير ما طلعت عليه الشمس أياك خير بدن بالي عاد عدبه وحي وصابح له إذا قفك مسلم كي وحو يقانا صلاة قيمها إلى ذي وحو كلو يقانا صونك قيمها إلى ذي باب قارو الريان ليلادو أما لا عدل له نبي محمد كتل المامة صونك وحو دق ما بمجرو صونك يا فضاي شيدنا قفك مسلم كعقل يساعد بيقوي تو يقانا صدقة يا وحلبها يا فضاي شيدنا قفك مسلم كو يقانا صدح شيء مقرر كا عند المسلمين لا يقانو فضيلته كجرتا انتي تahay ayuu intuu nabigu isku daray buu yiri wax ka fadli badan ma idin sheega صدح دي شيء taqaanin fadaayshooda wax ka si fadli badan adigu fadaayisha sunnanka ku soo aroray sadaqo dhan soo akhri soon oo dhan soo akhri wax ku soo aroray fadiila salaad oo dhan soo akhri intaas oo fadiila intaad isku darto nusuusta ku soo arortay keeda sunnaa أيو نبي محمد وحلي وحكى كوريا ما شيء هذا صحابته وحيلهم بلا ها إلهي رسول كيسيو وحكوا النبي عليه الصلاة والسلام سلاح ذات البين ضد كربت الدحدو دول إصلاحية كفض بدن ضد كربت الدحدو ده طالما مؤمنين قبائل كيستلية دولتها يستلية غيرها سفرية ضد ككلبورية شركات كبربرية waxaa muslimiinta is haysa dhexdooda oo la islaaxiyo ayaa ka fadli badan buu nabigu yiri xadiiska abi daawud waliba riwaayadka qaarkood waxa uu xadiiskaasi riwaayadkiisa qaar ka mid waxay sii tilmaamayaan fa inna fasaadu dhaat albayn hiya alxaaliqa markuu nabigu tilmaamay dadka dhexdooda oo xumaata waa alxaaliqa waa xiirta riwaayadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan idin malihi timahay xiirtaa iyo diintay xiirtaa dee adigu meesha colaadu ka dhacdo xisaabi mid yar iyo mid weyn iyo qof dumara iyo nin caalima iyo waayeel iyo dhiig muslim wax walba oo la banaystaa marka colaadu dhacdo geelasha la qaadayo xoolaha muslim cirdiga la banaystaa reer hebel caydiisa iyo gabay ku cay oo kan ku cay oo waxan ku cay oo cayda la banays saddexdii uu nabi maxamed xajkii u dambeeyay ee uu nabi maxamed xajo dee kaasoo qudhu baabu xajeeye saddex khudbadood oo jeediyay saddexda khudbadoodba waxa ku jiray war ma idinka warrama war maanta waa maalin ma war bishana waa tuma war beledkana waa kuma iyagoo beledullahi alxaraam taagan ama carafa taagan markuu intaasoo su'aalo weydiiyo wuxuu nabigu saddexda goorba ku celceliyay war hooy dhiigiina iyo maalkiina iyo cirdigiinuba xaaraan buu idinka yahay sida maalintii tan bishiina tan beledkiina inuu xaaraan u yahay intaba waa la banaystaa hadday colaadu dhacaan cirdigaa la banaystaa oo markaas aad arkaysaa qaar afmaalla ah oo gabay caya un tirinaya iyo reer hebel caydooda iyo waxooda ka warramaya waxaan jirin iyo wax jiraba isku daraya maalkaa la banaystaa iyo waxa reer hebel leeyihiin waa la qaadaa dhiiggaa la banaystaa iyo reer hebel halka lagu arkaba kawbaa laga siiyaa waa saddexduu nebigu ka digayey ee saddex khudbadood oo maalintii sagaalaad iyo maalintii labaad iyo maalintii yowm alxaj alakbarka يوم النحر يا أيام التشريق مالنت اللباد صدق ده خطبة ده وجديه صدق ده بوقت المامي ورديجين يا مالكين يا نفتين بقى وهذا كحران ونبوت المامي ولها لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض إذا هي الحالقة دين تيحيرتا هذا النفي يا مال يعرض تون اللي نبت قالين إن دين تصوحر ده بحين غرسة هذا أنت بالله حيره دين تكون صهر يسمى حين غرس نبي عليه الصلاة والسلام وحقاني علاده صوبة تالا لي عمل كيني لا أقبل مايا عمل كيني لا أقبل مايا مكة كلا تكتاني استشان سويني حديثك كسو مريني أيها الأحبة
nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahy ma camala bnu aadamu shayء afضala min الصalaaة bini aadamku ma sameeyo wax ka fadli badan salaad iyo dadka صalaaxu daati اlbeyn iyo khuluqun xasan buu nebigu ku tilmaamay wuxuu nebigu inoo tilmaamayaa qof kasta oo waagu markuu u baryo sadaqa ku waajibtay sadaqaadka waxaa ka mid ah tacdil bayna الnaas aw tacdil bayna اثnayn laba dhexdooda inaad u cadaalad samay inaad u heshiisiiso afضal الsadqa islaaxu daati اlbeyn xadiidka loo sheekh اlalbani uu markii dambe saxiixiyey taraajucaadkiisu ku jira xadiistu markii hore daciifiyey markii dambena uu ka noqday ee uu tasxiixiyu ku jira afضal الsadqa islaaxu daati اlbeyn buu nebigu leeyahy alayه الsalaaةu wasalaam idan ayuha اlaxiba waa fadiilo weyn sa awgeed waxgaradka iyo waayeelka iyo aqoon-yahanka waxaan u tilmaamaynaa war heshiisiinta ku dadaala oo dadka inay heshiisiisaan mihnad ha idiin noqoto yay mihnad idiin noqonin hadal xanaf leh iyo colaad iyo isku dir iyo maagis shaqaha ka dhigin heshiisiinta dadka la heshiisiiyaa waa waxyaabaha naadirkee nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam uu ku tilmaamay beentu xataa inay ku bannaanta nebigu calayh الsalaaةu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay laysa اlkadaabu aladii yuslix bayna الnaas fayanmi khayra aw yaquulu khayra layse اlkadaabu beenaalaha ma aha buu nebigu yidhi aladii yuslix bayna الnaas ka dadka dhexdooda samaha ka raadinaya oo fayanmi biduuni tashdiid markaad akhrido waa khayr faafinta haddaad shadana waa namiimnimada iyo waa shar faafinta oo dadka dhexdooda faafinaya khayr ama khayr u kala sheegaya qofka muslixee dadka hagaajinaya wuu la faqaa qolo walba gaar buu loo fadhiistaa cid waliba waxay tabanaysay sheegataa cid waliba waxa qallafsana ay sheegto ma soo raro inta khayrka luu raraa qolada kale markuu la hadlayo wuxuu idhahdaa nimankii reer hebel waxaasaan ku waxaasaan ku arkay ma bale waxay yidhaahdaan hadalkay yidhaahdeen xataa hadday iyagu meel qalloocan ula jeedeen meesha khayrka lagu raraa saasay sheegeen oo saasay sheegeen oo saasay sheegeen kadaab maaha bay culammadu yidhaahdaan bale imaamu nawowi wuxuu leeyahay waالظaahiru ibaaxatu xaqiiqatu nafsi اlkadib lakina اliqtisaara calى الtacriidi afضal buu yidhi xadiidka daahirkiisu wuxuu sheegayaa xataa been dhaba haddaad u qasdido aad ku heshiisiinaysa inay bannaan tahay laakiin buu leeyahay culammadu waxay yidhaahdaan inaad tacriidka iyo dulmarka iyo tawriyada martid ayaa ka fadlimay inaad been qayaxan sheegto calaa kulli xaal xadiidka culamada barh baa waxay ka daliishanayaan in dadka islaaxintoodu dadka barh baa warka waxay raraan inta dadka isku dirta inta dadka bal had qadiyada u fiirso inta dadka lagu heshiisiinaya xataa beeniba ha soo yaro dhex gashee khayr baa lagu helaa inta dadka isku diraysa xataa runna ha ahaatee runtaa naar baa lagu galaa u fiirso waa run naar lagu gelayo iyo maxay iyo been khayr lagu helayo haddaad intaad reerka soo dhegaysato warkii ay sheegayeen dee reeruhu markay isqabtaan kolley war kululun bay sheegi doonaan wixii kululaa intaad soo qaaddo aad tidhahdaa caynkaasay lahaayeenoo saan bay lahaayeen saan bay lahaayeen namiimiyaatay qataat laa yadkhulu اljannata qataat aw namaan buu nebigu yidhi jannada ma galo diradiraaluhu jannada ma galo buu nebigu yidhi alayh الsalaatu wasalaam namaan baa tahay xataa haddaad tidhahda wallahi run baa sheegaya runtaadaasaad namaam ku tahay runtaadaasaa naarta lagu galaa waayo waa run qasdigeedu yahay maxay in dadka la isku diro ma run khayr waddaba markaan hebeloo ku xantay intaan xantiisii soo raraan ku idhahdo wallahi haddeer caynkaa iyo caynkaasu ku lahaa waa isku kii diraya walow aan run sheegayo waa run aan janno lagu urinaynin waa run aan janno lagu tegaynin waa run xun idan ayuha alaxiba isku dirku diintu ma bannaynin waxyaabahaasi islaaxa in la raadiyaaba fiican dadka la dhex galo islaaxu waa inaanu diinta ka hor imanan isaguna shuruuduu leeyahy waxay culammadu yidhahdaan sulxi kasta oo muslimiinta la dhex dhigo oo uu ku jiro laba shay ilaahay raalli ahaanshiyihiisu iyo labada isaye raalli ahaanshiyihiisu
cadaaladna ay ka muuqato ama cilmi iyo cadaalad ku salaysan waa sulxi la aqbalaya bay yidhaahdaan nebigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahy aلsulxu jaaئis bayna اlmuslimiina ilaa sulxan axalla xaraama aw xarama xalaala dadka muslimiinta